horta aniga gaarigaas hadduu ii qarxi lahaa wixii meesha jooga horta waxaa waaye jahannamay wada aadi lahaayeen laakiinse gaariga waa maaragtaa diiday inuu qarxo waan ku celceliyey meeshii laga qarxinaya waan ku celceliyey oo ii suuragali weysay kuwii xabadaygu soo furjinayeen baa maaragtaa gaariga ku sheerarayay way kala ordeen difaaca way ka baxeen kursigan ku fadhiya dhan yacni maaragtaa waxaa wada qabsaday holac asiga dhan baa holac isqabsaday maadaama holac gaariga oo qabsaday oo dhexdiisa holac ka kacay marka waxaa waa holac in lagu dhinto waa maaragtaa waa dembi waa ismin kabiir marka gaariga waan ka kulanti waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlo ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaadda uu barakeeyo inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa dambigood iyo dambiga waalidkoodba ee baynu dhaafo rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku cazuumo جنة الفردوس الأعلى وعن ربي سبحانه وتعالى عن كبرينا أنت جوردون كائن جور وناكسن وسيء مستقبل وناكسن أنت أولاد هاي ستنين إلهي أولاد وبركة أنت أولاد دون كان إلهي أولاد باري هاسي حاسد كوحن لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوك قصاره معايا ليه حاسدين أنت وكوا قريبي أمد الصوماليات وعن ربي سبحانه وتعالى عن كبرينا حاسدين أنت إن جريودا هوك قصاره وقتصه لما أنت بموقال كان لك تصارع waxaan eegi doonaa warbixin la yaab leh oo cajiib ah kadib markii maanta maxkamad la soo hor istaajiyay Saciid biriq maxamuud cabdi oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaas oo doonaya inuu isku qarxiyo agaarka isgooska kiiloomitir 4 gaar ahaan wadada aada ee laboorka muqdisho waxaana maxkamadda hortiisa uu ka sheegay arrimo dad badan ee la yaabeen taas oo si weyn ay ula yaabeen dhammaan qaadiyaashii qaadayay xukunkiisa ee sidoo kale xeer ilaalinta qareenadii qudhiisa u doodayay Saciid ayaa ciidamada ammaanka waxay ku qabteen wadada isku xirtay isgooska lambar 4 iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee aadan cadde soo xilligaasi doonayay inuu isku qarxiyo jogbonte halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo halkaasi ku leh xarun istiraatiiji ah oo ammaanka ee laboorka muqdisho laga sugo waxaana la sheegay in Saciid xilliga uu doonayay inay isqarxiyo ay u suurtoobi waasay in waxyaabihii qarxay uu watay ay qarxaan taas oo keentay in ciidamada ammaanka ay Saciid gacanta ay ku dhigaan waxaana dabadeed loo wareejiyay xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaana xilligaasi soo gaaray dhaawacyo sida la sheegay oo ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxayna taas keentay in muddo sanad iyo xoogaha Saciid lagu sameeyo xaalad caafimaad isla markaana xilligaasi ama intaasi uu ku jiro xarun caafimaad oo ay leedahay hay'adda NISA laakiin hadda markuu soo ayaa waxaa la hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya hadaba arrimaha la yaab kale ee Saciid biriq maxamuud cabdi uu ka dhawaajiyay ayaa dad badan oo Soomaaliyeed ay la yaabeen waxaana Saciid uu sheegay in xilligii uu la qabanayay uu doonayay inuu isku qarxiyo jagbontiga ciidamada nabad sugidda ay ku leeyihiin agaarka ee laboorka muqdisho wuxuuna tilmaamay in haddii qaraxaasi uu u suurtoobi lahaa dhammaan dadka halkaasi joogay inay aadi lahaayeen naarta jahannabo waa sida hadalka u dhigay eedeysanahan ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee doonayay inuu isku qarxiyo agaarka isgooska kiiloomitir 4 gaar ahaan wadada ee laboorka aada Saciid wuxuu sidoo kale tilmaamay in qaraxaasi uusan u suurtoobin laakiin uu jeclaan lahaa in qaraxiisa uu u suurtoobo asigana halkaasi uu ku dhinto asoo isla markaasi tilmaamay carabkana ku adkeeyay in dhammaan dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay ku jiraan dad shacab ah sida laga dheehan karo goobta uu doonayay inuu isku qarxiyo in dhammaantooda ay aadi lahaayeen jahannabo waa sida Saciid uu qabo laakiin Saciid wuxuu hadalkiisa uu ku cabirayay in haddii uu qaraxaasi u suurtoobi lahaa askarta iyo dadka halkaasi joogay waa askarta ay aadi lahaayeen jahannabo taas oo ay qabaan saraakiisha iyo waliba askarta al-shabaab ka tirsan ee isqarxisa Saciid biriq maxamuud cabdi wuxuu ka dugnaa saraakiil iyo waliba askar kale oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo falal kala duwan lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaas oo qaarkood sarbeebi jiray isla markaana mararka qaar beenin jiray eedamaha loo soo jeedinayo iyo waliba waxa lagu soo qabtay laakiin Saciid wuxuu sheegayaa haddii la daayo xataa in hoosho
qaraxa uu fulin doono isla markaana uu ku cibaadeysan doono askar iyo waliba mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya waa sida maxkamadda uu ka hor sheegay eedeysanahan ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana xukunka maxkamadiisa qaadayay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Shuute taas oo si weyn ama hadalka uu ka soo yaray eedeysanahan ka tirsan al-shabaab ayaa si weyn waxa uu la yaabay Shuute oo muddo fog qaadayay kiisaska dagaalyahanada al-shabaab wuxuuna Shuute ku dhiisay sidoo kale xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisaba ee la yaabeen sida uu u soo indhacad yahay eedeysanahan ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee lagu qabtay gaariga qaraxa isla markaana xilligii la qabanayna ay dhaawaceen ciidamada ammaanka dhaawac kalena uu ka soo gaaray gaarigii uu waday oo uu sheegay in xilligii uu doonayay inuu isqarxiyo uu baxsaday isla markaana jagbontigiyo idil uu kala wareegay ciidamada kadib markuu sheegay in gaariga marsho uu galiyay taasna ay keentay in askarta ay kala cararaan wuxuuna sheegay Saciid in askarta markay kala carareen kadib rasaas ay ku soo fureen asigana baabuurka uu dhaliyay qiic iyo waliba uura fara badan taasna ay keentay in aakhirkii uu isdhiibo maadaama haddii uu ku dhiman lahaa qiica gaariga ka baxayay oo aan qarxin uu mutaysan lahaa ciqaab adag asoo hadalka u dhigay in ay tahay haddii gaarigaasi uu ku dhex dhiman lahaa qiica iyo waliba uurada gaariga ka baxaysa oo aan qarxin ay ka dhigan tahay in laga dhaxlayo dambi akbara ama dambi weyn sida hadalka uu u dhigay Saciid uuna ka hor sheegay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya eedeysanahan ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa waxaa si cad u sheegaya in ay waajib tahay in lala dagaalo ciidamada dawladda cid walba dawladda taabacsan cidii isku qarxisaana ay helayso ajir waa sida uu leeyahay eedeysanahan maanta maxkamadda la hor keenay isla markaana markii ugu horeysay la dhageystay eedeymihiisa wuxuuna ku indhacad yahay ku siin indhacadeynayaana wali in wuxuu uu sameynayay ee tahay arin wanaagsan qareenada difaacayay Saciid ayaa waxay sheegeen in Saciid maskaxiyan uu sanfiyoobeen isla markaana markii horena dagaalyahanada al-shabaab ay soo khaldeen qareenada qaarkood waxay ku doodeen in Saciid la daroogeeyay daroogadana ay keenayso laakiin xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa afka furtay dhankiisa wuxuu sheegay Saciid inuu xirnaa hal sano iyo bar haddii la daroogeeyna in muddadaasi sanadka iyo barka ay uu xirnaa ee ka baxayso daroogada isla markaana aysan jirin wax darooga laakiin uu aaminsan yahay fikirkii hore uu aaminsanaa uuna u soo baxay inuu isku qarxiyo waa sida uu sheegay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana xeerlaalinta maxkamadda ciidamada gabi ahaanba meesha ay ka saartay in Saciid uu waalan yahay ama uu daroogaysan yahay waxaana xeerlaalinta ay ku dooday in qof waalan uusan gaari soo wadin isla markaana gaari uusan wadi karin taasna ay ka dhigan tahay Saciid xilligii gaariga uu soo waday inuu ku qanacsanaa fikirka isqarxinta ay ku soo aqriyeen saraakiisha dagaalyahanada al-shabaab waa sida ay leedahay xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana xeerlaalinta dhanka kale ee meesha ay ka saartay isla markaana looyarada ay dhankooda ay ka diiday in Saciid uu duran yahay haddii uu duran yahay ama uu daroogaysan yahayna muddo sanad iyo bar ah daroogada ay baxayso waa sida ay sida ay yiraahdeen saraakiisha xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dad badan oo Soomaaliyeed ayaa si weyn ula yaabay Saciid iyo waliba sida maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya horteeda uu ugu sheegayo in uu doonayo inuu isqarxiyo isqarxintiisana dadka ku dhinta dhammaantooda inay gali lahaayeen naarta jahannabo haddii hadda uu baxana uu isqarxin doono si uu u laayo askarta saraakiisha ciidamada dawladda iyo dhammaanba xubnaha u shaqeeya dawladda Soomaaliya taasoo dad badan ka fajcisay iyo waliba hadal adeega Saciid uu la soo hor istaagay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya taas oo dad badan ay ka baqaan xilliyada la hor istaajinayo maxkamadda dadka qaar ee Soomaaliyeed ayaa qaba in dhalinyarada ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay isqarxisa in la daroogeeyo laakiin dadka khubarada ah ee u dhundaleela arrimaha al-shabaab waxay sheegaan in arintaasi bataatan ba aysan jirin laakiin qofka isqarxiya lagu qanciyo mabda'a al-shabaab taasna ay keentay in qofka soo aaminsan mabda' ahaan uu isqarxiyo Sakariya Ismaaciil Maxamuud Xirsi madaxii hore ee sirdoonka Soomaaliya isla markaana xilli ahaa madaxa amniyaadka guud ee dagaalyahanada al-shabaab ayaa xilligii uu ka soo goostay al-shabaab SNTV waxay weydiisay aragtida ku aadan in dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ee isqarxisa
la daroogeeyo wuxuuna xilligaasi arrintaasi uu sheegay inay tahay midaan waxba ka jirin isla markaana wuu naqdiyey wuxuuna sakariya oo muddo fog al-shabaab ku jiray saraakiisha ugu sarsaraysa al-shabaabna ka mid naqday malaayiin lacagna madaxiisa la duldhigay uu sheegay in dhalinyarada al-shabaab ka tirsan ay isqarxiso mabda ahaan laga gado mabda'a isqarxinta isla markaana waxay ay ku qancaan ee isku qarxiyaan laakiin bataatan ba aysan jirin daroogeyn lagu sameeyo dhalinyarada haddaba mawduucii arrintan ku saabsan ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu allah awoodda la udmo ayadoona macallin ilka case la yidhi hadda waa beenta kadibna macallin ilka case iyo weliba macallinkii dilaaga ahaa walaalkiis uu daaqada kala baxay waqtigan dhammaantiin ba ilaahay aadin xifdiyo ilaahay umuraha leedin hasal allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahlan fajcal umurana umur almuslimiina kullaha sahla ilaahay oo dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kaalmadaada iyo naxariistaada ilaahay oo dhammaanteen ba faraj qeyr qaba ilaahay inoo fur oo ilaahay oo dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa ilaahay inoo naxariiso ilaahay oo dhammaanteen ba awlaad inoo barakay inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baariyay inta gurdoonkana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweynow si rabbiyo waxaan dhammaanteen ba ka baryaynaa naxariistaada iyo gargaarkaaga iyo jannatul firdaws ala ilaahay oo dhammaanteen ba waalidiinteena dambigood iyo dambiga waalid waa dambigan iyo dambiga waalidkeen ba ilaahay u dhaaf ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimiinta ba qulubtooda ilaahay miday ilaahay muslimiinta meel walba ay joogaan qulubtooda ilaahay isku keen ilaahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay gargaarkaaga iyo nasrigaaga iyo kaalmadaada iyo izigaaga ilaahay ummadda Soomaaliyeed si ilaahay cid walba Soomaaliya cadow ku ah waa taqaana ilaahay cadowga Soomaaliya ku soo duulay kuwa cadow ku ah iyo kuwa nacab Soomaalida ilaahay ka qabo waxaan ilaahay dhammaanteen baan ka baryaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada sallallahu ala nabiyina muhammadin وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين